session 1 waa cashirkii koobaad ama cashirkii ugu horeeyay ee course outline-keena waana introduction to first aid hordhaca first aid-ka marka hordhaca gargaarka degdega ah first aid-kuna waa gargaar degdega ama waxa la yiraahdaa wadanyeel caafimaad oo ku meel gaar ah first aid sidoo kale waxa la yiraahdaa waa daryeelka caafimaad ee la sameeyo ama laga sameeyo meesha aan dhakhtar joogin waxa wuxuu ka shaqeeyaa where there is no doctor meel aan dhakhtar joogin ayuu gargaarka degdegii ka shaqeynayaa waana daryeel caafimaad oo qofka la siiyo si loo gaarsiiyo qofkaas inuu helo daryeel caafimaad oo dhameystiran tusaale ahaan oo kale qof wada ku dhaamacay ama qof meel bahal ku qaniinay ama qof gaari shiray ama accident kala ku dhacayba qofkaas baad la kulantay adigoo aan haysanin wax nooyay qalab caafimaad ama markaa aan u diyaarsanayn hadda xataa xirfadla caafimaad tahay markaa aan u diyaarsanayn aan joogin goobtii hawsha lagu qabanayay adeega aad fidinayso ayaa la oranayaa waa first aid marka chapter-kan waxaan kaga hadli doonaa hordhaciisa dhowr qaybood baan u qaybin doonaa ama dhowr ciwaanadaasna hore ugu socon doonaa ciwaanka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa definitions ama qeexitaanka qeexayo first aid-ka halkan markaa waxaa ku yaala qeexitaanadii ama definitionskii oo lahaa first aid-ku saan hore u sheegnayba waxayna waa daryeel caafimaad oo ku meel gaar ah ama first aid-ku waa gargaar degdeg ah waa gargaar caafimaad oo qof xaalad caafimaad darro ay la kulantay loo fidinayo halkaasoo aanay ka dhaweyn xarun caafimaad ama aanu joogin beeniri dhakhtar marka first aid-ka cid kasta baran karta qof aan xataa dhakhtar ahayn ayaa gargaarka degdega ah baran kara maadaama yahay wax iska fudud maadaama yahay wax loo qabanayo si kadisa ah cid kastana way u baahan tahay inay barato balse dhammaanteedba waxa ku haboon inay wada bartaan si qof kasta ama markuu la kulmo shil meel ka dhacay ama xaalad caafimaad darro oo cid kale la soo daristay in qofkaasi ka howlgeli karo qofkaasna caawin karo marka first aid-ka waxaan ku qeexinaa waa treatment waa daaweynta given la siinayo qof baa la siinayaa qofka goorma daaweynta la siinayaa waxa la siinayaa weyn marka an accident marka shil or sudden illness ama qofkaas uu bukoodo ama sudden illness bukaashiye degdeg ah oo lama filaan ah oo qofka ku dhacdo qofkaas si degdeg ah ayuu xanuunsaday si caadi ah normal waxa si degdeg ah xanuunsaday daryeelka caafimaad la siinaya ama treatment la siinaya wuxuu noqonayaa qofka xaaladiisa lagula tacaalaya first aid buu noqonayaa ama qof baa shil baa ku dhacay shilkaasi ha ahaado isku talagala ama aadmina talagalahayn labadaba noqon kara marka daaweynta la siinayo ayaa la yiraahdaa waa first aid marka waa treatment waa daaweyn difan la siinayo ama la bixinayo when an accident marka shil or sudden illness ama bukaashiyo degdeg ah oo lama filaan oo kale soo dhaco sidoo kale definition ka lamid ama qeexitaan ka lamid oo ku qeexayna halkana labadan qeexitaan isaga iska leh first aid is an immediate care waa daryeel degdeg ah immediate care waa daryeel degdeg given la siinayo to a person qofka la siinayo qof nuuciye qofkaasi waa who has been injured waa qof dhaawacmay oo dhaawac soo gaaray ilaa goorma la siinayo waxa la siinayo until lamaayay he isaga oo she ama iyada oo haduu lab yahay iyo haduu degdeg yahay halkan uu kala saaraya waxa gargaarka caafimaad ama daryeelka caafimaad degdega la siinayo qofka until lamaayay he isaga ama she iyadu isteekan loo qaaday to health facility yani meel laga helayo caafimaad oo qalabkii oo dhan ay yeelaan ama maxay qofkaas loogu adeegi karo oo daryeel caafimaad dhameystiran lagu siin karo health facility saasay noqonaysa or health center ama xarun caafimaad qofka laga gaarsiinayo marka daryeelkaas caafimaad ee qofka inta loo sii wadayo ayaa la yiraahdaa gargaar degdeg ah ujeedooyinka laga leeyahay gargaar degdeg ah iyo maxay aqoontan gargaar degdeg ah micnaheedu waxay tahay waxa ka dambeeya ku arki doonaa laakiin kan waa qeexitaankii gargaarka degdeg ah halkana waxay inoo yaala ujeedooyinka laga leeyahay gargaarka degdeg ah waa maxay ujeedada ka dambaysa in qofka loo sameeyo gargaar degdeg ah
ama waa maxay purpose ujeedada first aid treatment daaweynta gargaarka degdega qofka la siinayo ujeedada ka dambaysa maxay tahay maxaa qofka loogu sameeyaa daaweyntan qofka maadaama xarun caafimaad la helayo xarunta caafimaad loo geyn waayay laakiin daryeelka caafimaad loo siinayaa daryeelka caafimaad ujeedada loo siinayo waxa ka dambaysa ama muhiimadaha ka dambeeya waxa kamid ah maadaama qofka dhaawac soo gaaray qofkani ku simi maayo qofkan ilaa inta laga gaarsiinayo xarunta caafimaad waxa laga yaabaa mushkilada qofkan ku dhacday inay qof ku keeni karto haddii aanu helin daaweyn rasmi ah oo qofkan lagula tacaalo qofkan inuu dhintaba marka qofkani ilaa inta laga gaarsiinayo xarunta caafimaad waa inuu sii helaa follow up care daryeel caafimaad oo la sii socdo qofkan xaaladiisa caafimaad deedna lagu gaarsiiyo xarunta caafimaad marka ujeedada koowaad waxa weeyaan ama purpose-ka ujeedada laga leeyahay to sustain the life in nolosha qofka bini'aadamka ay sii jirto ama sii waarto marka halkan uma jeedno walihiin qof dhimanayno yani nolol u samayn karna laakiin waxa loo jeedaa inaad sabab u noqoto in qof haddii uu waayi lahaa gargaarka degdega ah dhiman lahaa in gargaar degdega siiso si qofkaasi noloshiisa ay usii jirto markaa sababaad u noqonaysa qodobka labaadna waxa weeyaan to prevent suffering inaynu ka hortagno qofkan inuu cabasho keeno ama qofkan mushkilad dheeraadi ay soo gaadho ama muxuu haayay qofkani intaa la sii wado ama lagu sii wado in xanuun dareemo ayaa laga hortagaya marka qofkii xanuun baabiyaad u noqonaysa xanuun baabiye gargaarka degdega aad siinayso ayaa u noqonaysa xanuun baabiye qodobka saddexaadna waxa weeyaan in laga hortago secondary complication to prevent secondary complication waxa weeyaan in qofkan haddii gargaar degdega uu markaa waayo waxa laga yaabaa in xaaladan uu ku jiro ay kasii darto ama sii xumaato in qofkii ay noqoto in markii hore stage ku tagnaa ee primary ah inuu ka tago xanuunkii ama xaaladii qofkan ay si dhaawac ay tadawna secondary u gudbo in secondary-gaas uu keeno qofkan inuu hadhowto mushkilada kale uu ku keeno oo dhibaatadii soo gaadhay ama mushkiladii soo gaadhay ee markaas sida immediate-ka u soo gaadhay ee degdega ahi hadhow complicationskaas inuu late noqon hadhowtaan mushkilad kale ku keenin ayuu baa looga jeedaa to prevent in laga hortago secondary complication qodobka afraad ee ujeeda ahaan laga leeyahay first aid treatment-ka waxa weeye to promote speed recovery in qofkan kor loo qaado qofkan inuu hore u bogsado oo markasta oo qofkan xaaladiisa caafimaad hore loola tacaalo ama hore loo gaarsiiyo xarunta caafimaad ama inta xarunta caafimaad lagu sii wado qofkan loo sii fidiyo adeeg caafimaad oo kumeel gaara waxay taas ka caawinaysaa dhowto qofkani inuu si degdeg u bogsado haddii qofkan gargaar degdeg ah waa wax laga yaabo qofkan inuu muddo isbitaalka ku jiro oo hospitalization uu dhaco deedna uu ku raago isbitaalka deedna uu hore u bogsan waayo marka to promote in kor loo qaado speedy recovery inuu degdego soo kabashadiisii ama caafimaadkiisu inuu soo degdego sidoo kale halkan qayb yar bay inoo taalo purpose of first aid ka hadlaysa oo iyadana team un lamida marka waa isku mid sawirka halkan yaala waxa weeyaan in insha Allah laba jeer qabato dadna aad si fiican u sii fahanto oo aad sustain the life way sagoon to prevent suffering in qofkan xanuun baabiye aad noqoto oo xanuunkii iyo safarkii uu dareemayay inaad ka hortagto to prevent secondary complication inaad ka hortagto in qofkani xaaladiisu ay kasii darto worsening condition qofkan inuu noqdo to promote speed recovery iyo qofkan inuu bogsado dad ka caawiso inuu si degdeg u bogsado marka first aid ku sameeyo halkan waxaa inoo yaala qofkii waxaan doonayaa gargaar degdeg inaan siino hadaba gargaar degdeg inaan siino oo xaaladan degdeg qofka ku timi aanu ka caawino ama problemka qofka soo wajahay ee degdeg ah talaabooyinka sidee loo qaadaya marka steps baa jira marka qofka la siinayo gargaar degdeg steps baa la qaadaa stepska la qaado in halkan aan ku soo khulaasaynay in halkan laguma qorno laakiin waan sheegaynaa dhamaantoodba stepskaas waxa jira wax la yiraahdo oo kelmado la soo gaabsado wax la yiraahdo Doctors ABC baa jira Doctors ABC daasi waa talaabooyinka ugu horeeya la qaadayo marka Doctors ABC dan xuruf weeyaan laakiin mid kasta waxba loo soo gaabiyo xuruftaas diida ugu horeysa oo kale idinku meel baa ku nood galaysan doontaane hadaynu qalinka soo qaadano
وحينيري و دكتريس A B C ديدان ugu horeysa intaanad garisan doono waxay taagan danger marka muhiimadeedu waxa weeyaan inaad marka ugu horeysa qofka inaad farahaaga la gelin qofkan wada ay qofkan dhibaatada soo gaadhay wax soo gaarsiiyay kan warqabtinta badan wadaad arkiisay wixii ku dhacay taasi waa halkeeda laakiin dad la kulantay qofka meesha ku dhacay oo dhiid waa danger weeyaan marka wax iska eegaysa qofkan maxaa khatar ku gadaaman qofkan maxaa sababay inuu dhaco biluu leer ku dhagay biluu bahal qaniinay waxa soo kan warqabteedu marka markuu waraysa danger waxa weyn inaad iska eegto inay meeshu safe tahay in kale sid naftaada u badbaadiso artana waa response way waxay u taagan tahay jawaabitaan marka inta ogaato khatartiisa ka eegto waa la hadlaysaa qofkii ariyo ka wadanaysa ma nabad qabtaa sax ma tahay waa gargaraacaysa marka hadduu ku jawaabo dee uu ku sheegay wixii ku dhacay laakiin hadduu ku jawaabi waayo marka waxa noqonaysa inaad ka gudubto marka response waxa qofku inuu jawaabo hadduu jawaabo waxa kale oo dhan meesha waan ka saareenaa qofka marka la tacaamulaysa wareysanaysa mushkiladii ku sheegay laakiin hadduu jawaabi waayo instan laba macno waa lagu sheegaa mar waxa la waa shout for help waa inaad qayliso oo caawimad dalbato oo ka dhigan ama inaad cid kale u yeerato ama in ambulance-kiiba garaacdo marka qaarkoodna waxa la yiraahdaa waxay u taagan tahay sabine macnaheedu waxa weeyaan in dhabarka qofka loo jiifiyo WSU double B I N E sabine marka qof dhabarka u jiifiso waxa weeyaan waxaad bilaabaysaa first aid-kaagii eedan ugu horeysa waa meelaha ugu muhiimsan ee qofka laga bilaabay gargaarka degdega waana hawo mareenkii airway-gi weeyaan airway-gaad hubinaysa qofkan inuu airway-giisu furan yahay marka madaxiisa iyo garhkiisa ayaa dib u qaadaysa si hawo mareenkaad u eegto marka inuu qofkani hawo mareenkiisu furan yahay oo aanu xidhnayn dalqadiisu bidana waxa weeyaan waxaad hubinaysaa inuu qofkan neefsani waa breathing-kii waa neefsashadii sidana waxa weeyaan circulation-kii ama waxa deegaysa garaaca wadnihiisu inuu shaqeynayo marka intan waxa loogu soo qaatay eedan airway-gii hawada marta bidan waa hawadii waa neefsashadii lafteedii sidana waa garaaca wadnaha marka waxa la yiraahdaa labadaas labada ugu muhiimsan neefsashada iyo garaaca wadnuhu waa labada ugu muhiimsan qofka marka ugu horeysa daragto in meel ku dhacay laga jeegarayo dadna wixii kale marka mushkilada qofka soo gaaray ayaad marka u gudbaysaa qaabka loo manage karayo breathing iyo circulation-kana waan arki doonaa laakiin intan waa inaad maanka mar walba ku haysaa halkan anaga haddaba halkan qodobadeena inoo qor waxa weeyaan qofka inaad xaaladda guud marka hore eegto look at the general situation the victim quickly xaaladda guud ee qofka dhibanaha victimku waa dhibanaha ayaad eegaysa si quickly yani dhaqsaa wada eegaysa waad qiimeynaysaa deetana and decide waxaad go'aaminaysaa what's wrong maxaa khaldan qofkan maxaa ka khaldan maxaa ku dhacay mushkiladda halkay ka haysata and how severe and dangerous the injury is and how severe sidee buu u daran yahay and dangerous khatarna uu yahay the injury is dhaawacan qofka soo gaaray sidee buu u daran yahay khatarna uu yahay waxyaabahaad ku muxuu ahaye qiimeynaysa weeyaan ama waxyaabahaad talaabooyinka aad qaadayso aad ku salaynaysa weeyaan qofka marka xaaladiisu aad u daran tahay iyo marka xaaladiisu iska saaran tahay isku si action-ka aad qaadayso iyo go'aanka aad qaadanayso isku mid maaha qodobka loo dhaxeeyo stepska qofka marka xaaladiisu ogaato mushkiladiisu ogaato inaad qofka siiso appropriate first aid ku habboonaade haddii naqasku ku dhagay hadduu jaban yahay first aid ka siinaysa ama gargaarka degdega siinaysa oo kala duwanaanaya hadduu jaban yahay management-kii jabniinka fracture-ka ayaad siinaysa haddii naqasku ku dhagayna kii naqaska ayaad siinaysa marka saas loo leeyahay appropriate first aid inta markaad samayso waxa weeyaan dee mar walba waxayna gargaarka degdega waa dariiq caafimaad ku meel gaar ah maaha adigu resultkii ugu dambeeyay ama go'aankii ugu dambeeyay qofkan xaaladiisa caafimaad ma qaadanaysid mar walba waxa loo gudbinayaa qofkan isbitaal marka waxa weeyaan inta waxaad ugu gudbisay marka adigu intii kaaga wajahnayd first aid ahaan waxa weeyaan inaad
ogeysiiso notify waxaad ogeysiinaysaa your senior qofkii kaa sarreeyay medical professional ka ahaa aad ogeysiinaysaa ama isbitaalka la xiriiraysaa and arrange waxaanad u diyaarinaysaa qofkan arrange waa isku haween laakiin diyaarin baa laga wadaa transport gaadiid baad u diyaarinaysaa hospital in isbitaalkii la geeyo qofkan or health center ama xarunta caafimaadka qofkan referral baad ku sameynaysaa referral waxa weeye referral ku xigeen in qofku iska gudbiso xarunta caafimaadka aad u gudbiso inta marka laga yimaado waxa qofka la siiyo follow up care wax loo yaqaano inta uu ku sii jiro socdaalka inta ambulance-ka uu la sii socdo haddii ambulance la way gaari kale la saarana waa in inta gaariga uu sii saarayay follow up care loo sameeyo follow up care waxa weeyaan in qofkan lala sii socdo xaaladiisa waa daryeel la sii socdo qofka xaaladiisa inta uu safarka ku sii jira during journey-ga marka ambulance ku yimid ambulance hadii first aid la socdaan marka aad ka haraysa hadii first aid ani ambulance kala socdaan wax noqonaysa ilaa isbitaalki inaad adigu raacdo wadeetana hawshii aad sii qabato adigu aan ka gudubno halkan waxa inoogu yaala waxa la yaqaan scope of the first aid treatment scope waxa weeyaan waa inta diirada saaray first aid inta diirada saaray diirada inta saaray ama inta koobaba ama inta guud ahaan ka hadlaba waa afartan qodob bay noqonayaan sawirradana iyagu bay noo muujinayaan sawirka hore labada qodob hore ayuu muujinayaa oo qodobkooda waxa weeyaan in assessment lagu sameeyo assessing the situation in xaaladda guud qofka la qiimeeyo sidii aan soo sheegaynay waa general situation ka qofka inaad eegto marka koobaad marka general situation ka eegto ilaa general situation ka qofka adeegaysa oo assess gareynaysa waxaad assess gareynaysa xataa xaaladda deegaanka qofku uu ku sugan yahay ay ku sugantahay assess gareynaysa dhibaato uu soo gaadhin kadibna waxaad baaraysaa diagnosis the problem mushkiladda qofka haysata aad baaraysa marka labaad marka qofka mushkiladiisa baadho waxaad siinaysaa immediate treatment even immediate treatment daaweyn degdeg ah siinaysaa qof marka daaweynta degdegi way kala duwanaanaysaa qofkana oo kale halkan sawirkan ilaa halkan inoogu sugan sawirada nimka halkan yaala way kala duwan sawirka hore in qofka CPR baa la sameeyaa CPR waxa weeyaan qofka marka dhiigwareeg samoodiisa aan si fiican u shaqeynay CPR ka marka CPR laba procedure isugu jira wuxuu isugu jira neefsi iyo wadne istaag ama dhiigwareeg si fiican u shaqeynay waxa la cardiopulmonary resuscitation cardio wadnihi pulmonary ni waa sababadii resuscitation waa helping qofka inaad ka caawiso mushkilad kaga timi wadnaha iyo sababada kuwan ku xigana labadan ku xigana choking bay sheegeen choking waxa qofku inuu saxdo halkan waxa looga jeedaa sawirada dhamaantood maadaama kala duwan yihiin even immediate treatment waxa siinaysa daaweyn degdeg ah ee siinaysa marba mushkilada qofka problem halkan kaaga soo baxay ku xiran inta kadib referring baa sameynaysa the casualty iyo victim waa isku mid marka referring the casualty waxa qofka dhibanaha waxaad u gudbinaysaa to higher health institutions xarumaha caafimaad heerkoodu sareeyo qofkan caafimaadkiisa saxda ah u qabanaya ama adeegga caafimaad uu baahnaa u qabanaya ayaad u gudbinaysaa waad iska gudbinaysaa sidna isbitaalkii baa la geenayaa ambulance baa la saaraya ambulance ayaa la saaraya marka kana waa inta uu diirada saaro waa in assessment la sameeyo oo situation qofka lagu sameeyo situationka deegaankaba xaaladda deegaankaba in qofka problemkiisa la baaro in treatmentkii ku habboonaa ama first aid ku habboonaa la siiyo kadibna isbitaalkii qofka loo gudbiyo